بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aniga oo hayl qaran waxaan halkan rabaa inaan kaga hadlo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble qaabkii wanaagsanaa ee u maareeyay kalsoonida shacabka ee luntay kadib markii uu 7 nin oo ka mid ah guddiga doorashooyinka oo qaybta xalinta khilaafaadka uu xilka ka qaaday isla markaana ku bedelay 7 kale. waxaa la oran karaa arrintaas waa arrin qudayasho mudan, waa tallaabo hore loo qaaday isla markaana Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku mahadsan yahay. dad badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ayaan bariyaha kanba kalsooni buuxda ku qabin qaabka ay u socdaan arrimaha doorashooyinka isla markaana aan ku qanacsanayn guddiga doorashooyinka qaabka ay wax u maamulayaan. waxaa soo baxay cabashooyin waaweyn oo ka mid ah qaabka ay doorashadu uga socoto maamul goboleedyada qaar iyo magaalada Muqdisho, taasoo loo xaglinayay in iyagu ka dameeyaan khaladaad ay sameeyeen guddiga doorashooyinka. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu soo celiyay rajadii shacabka ay ku qabeen doorashooyinka si loo helo xukuumad ku timaada xalaal isla markaana loo helo baarlamaan xalaal ah soona doorto dowlad xalaal ah. Ra'iisul Wasaaruhu waa ku mahadsan yahay arrintaas. 7 shakhsi oo xilka laga qaaday waxaa la oran karaa waxay soo celinaysaa rajada shacabka ay ku qabaan doorashooyinka isla markaana waxay soo celinaysaa rajada musharaxiinta ay ku qabaan ama ku qabi karaan arrimaha doorashooyinka iyo xildhibaanada soo bixi doona. waxaan mar labaad ugu hambalyeynaya arrinta Ra'iisul Wasaaraha. waa tallaabo ku dayasho mudan oo geesinimo leh, waa tallaabo anagu aad aan ugu qanacnay uguna faraxsannahay shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay. waxaa jiray baryaha kanba tuhunna la qabay in dad gaari ku shubanayaan doorashooyinka isla markaana ay la soo baxayaan shakhsiyaad gaar ah oo mataqaanaa u codaynay doona hadhowdii dad gaar ah. arrintaas waxaan kula talinayaa isla markaana ugu baaqahayaa guddiga doorashooyinka iyo cid kasta oo ay khusayso arrimaha doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose maanta in ay xil iska saaraan isla markaana daacadnimo u muujiyaan shacabka Soomaaliyeed. musuqmaasuqa baahsan ee lagu sheegayo iyo wax isdabamarinta arrimaha doorashooyinka ka soo baxaya waayadii dambeysay waxaan rajeynayaa tallaabadii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble qaaday inay hoos u dhigi doonto. waxaan rajeynayaa inay noqdaan kuwa la magacaabay cusub inay noqdaan sidii laga filayay dad daacad ah dadkooda iyo dalkooda u shaqeynaya isla markaana ka fogaan doona musuqmaasuq iyo wax isdabamarin. aad iyo aad baa u mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed. barnaamijkan share garaya, subscribe kana saara. waxa lacaga idinkuma aha waa idinku bilaash, waana mataqaanaa waana dhiirigelin bay noo tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad baan u salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel bay joogaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.